dhegaystayaal saaxiibayaal waxaa ku soo dhawaadan barnaamij gaar ah oo kaga hadli doono muhiimadda saldhigga military ee dalka Imaaraadka Carabta laga siiyay magaalada Berbera. barnaamijkan gaarka waxaa idiin soo jeedin doona anigoo ah Siciid Xasan Xaaji waxaa qaybta farsamada iga qaatay Qadar Jambiir Cige iyo bahda Arabsiya Times.net oo noo qaabilsan dhinaca internetka saaxiibayaal. Berberi waa magaalo madaxda gobolka Saaxil, waa magaalo xeebeed ay ku taalo dekada ugu weyn Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu istiraatiijisan qaaradda Afrika iyo marinbiyoodka Badda Cas. halka laga soo galo Afrika waxay dhacdaa qiyaas ahaan inta u dhaxaysa Baabalmandab iyo Khaliij al-Cadan gacanka cadbeed. koonfur bari waxay ka gashaa badweynta Hindiya oo ah badda saddexaad ee adduunka marka laga reebo Atlantika iyo Pacifica. badweynta Hindiya waxa ku jira kheyraadka adduunka ugu badan, biyaha adduunka 20% ayaa ku jira, baaxadeeduna waxay dhan tahay 7,560 kilomitir. 40% kheyraadka adduunku waxa uu ceegaagaa badda ay Berberi. dhaqaalaha adduunku waxa uu maraa badda Berbera 40%. shidaalka adduunka energy waxa maraa 65%. Berbera waxa ay isku xidhaa qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Australia. Berberi waxay quudin kartaa 12 wadan oo ku jira obacda Afrika oo aan Berberi waxay ku xidhan tahay Canal de Suez oo ah marinbiyoodka dhaqaalaha iyo shidaalka ugu maro Israel iyo Yurub. dekada Berbera buqcadda dahabiga ee ay ku fadhidaa waxay dhan tahay 350 kilomitir. dhererkooduna waxa uu dhan yahay 2,250 kilomitir. waxay hoos u qodan tahay cabir dhan 1,630 debis oo dherer hoos ah. waa badda ugu gunta dheer degmada Badda Cas, taasoo u saamaxaysa maritaanka maraakiibta. sanadkii 2016 heshiis dhex maray shirkadda TP Hall iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu wareejiyay dekada Berbera muddo 30 sanadood dhan. shirkadda TP Hall ee caalamiga ahi si dhib yar uma iman Berbera ee waxay ogtahay qiimaha iyo qaayaha ay leedahay. sanadkan 2017 sida uu cadeeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Saad Cali Shire, waxaa jira heshiis caalami ah oo ay Soomaaliland la gashay dalka Imaaraadka Carabta ee Abu Dhabi, kaasoo u ogolaanaya saldhig military inay dowladda Imaaraadku ku yeelato Berbera, gaar ahaan airportka Berbera oo ah kan ugu dheer qaaradda. waxaa xusid mudan inaynu isweydiino su'aalo dhowr ah. saldhigga military maxaynu ka dheefaynaa? maxaa inooga dan ah? imise ayaa lagu kareeyay? maxaa faa'iido inoogu jirta haddaynu nahay Soomaaliland? muxuu inoo soo kordhinayaa? cadaawad ma inoo samayn karaa hor leh? gorgortanka Soomaaliland ee saldhigga military ku saabsani heer ictiraaf ma gaadhsiisan yahay? dowladda Itoobiya ee aynu jaarka nahay, danaha inaga dhexeeya muxuu heshiiskani saamayn ku yeelan karaa? su'aalahan iyo qaar kale oo badan waxaa looga fadhiyaa xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeegka ka yahay mudane madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo inay si faahfaahsan oo aan mugdi ku jirin ugu soo bandhigto dadweynaha Soomaaliland ee aad iyo aad u dhuganay. haddaynu si kale u dhigno, saldhigyada military ee caalamiga ah waxaa loo qaybiyaa 4 nooc. saldhig military oo uu wadan ka samaysto wadan kale oo ay saaxiiba yihiin si uu ilaashado danaha dhaqaale ee dalkaasi leeyahay oo loo yaqaano protection interest. nooca saldhigga labaad waa nooca loo yaqaano joint base, saldhig military oo ah wadamo wada duula
oo hubeeya ciidamo isku dhafan oo ka soo kala jeeda labada dhinac. nooca saddexaad ee saldhigyada caalamiga ah ee military ee adduunka waxaa loo yaqaanaa proving ground base, saldhig military oo lagu tijaabiyo hubka waaweyn ee waddan samaystay ama uu soo iibsado, kaasoo aad iyo aad ugu xun deegaanka iyo kalluunka badda, oo aan u wanaagsanayn nolosha dadka iyo xayawaanka dalkaasi. nooca saldhig military oo afraad waxaa loo yaqaanaa command base ama command center, saldhig military oo ah meel laga hago hoggaanka ciidan ee waddanka la leeyahay, rug laga hoggaamiyo ciidamo hubaysan. haddaba saldhigga military ee ay dowladda Somaliland heshiiska kula gashay Imaaraadka Carabtu waa kuma, waa noocee? ma protection interest ba, ma joint base ba, ma proving ground base ba, ma command base ba? الكاو كتيو كورهرو تشريك بهالدالي كما كوما إكي وعيد كنت تحضرنا له الذي صبرتا كما كوما إكي وعيد كنت تحضرنا له الذي صبرتا قوت الدالي. dhegaystayaal saaxiibayaal waxaynu intaa ku soo gabagabay doonaa barnaamijkii gaarka ah oo kaga hadlaynay muhiimadda ay leedahay istiraatiijiyadda dekedda Berbera iyo saldhigga cusub ee military ee laga siiyey dalka Imaaraadka Carabta airportka Berbera, annagoo sheegaynay qiimaha iyo qaayaha ay Berbera ugu fadhido qaranka Somaliland. tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijka iyo mid la mid ah waa Siciid Xasan Xaaji iyo Radio Nafta oo idinku dhaafaya www.arabsiatimes.net ee barta internetka. saaxiibayaal isma dhaafno, sidaa iyo nabadgelyo.